fadlan haddii aad nagu cusub tahay subscribe dheh kuna dhufo calaamadda gambaleelka ah si aad u hesho wararka iyo barnaamijyada aan halkan soo gelino waa mahadsantihiin. bismillaahi raxmaani raxiim. shirkan jaraa'id waxaan rabaa inaan uga hadlo aragtidayda ku aadan khilaaf maalin dhoweed soo kala dhex galay gudoomiyaha oo khilaaf sharci ah gudoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle iyo kusimaha gudoomiyaha ahna gudoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle kaas oo kuna saabsanaa xiritaanka baarlamaanka uu gudoomiyaha telefoon ku xiray isagoo Muqdisho joogo iyadoo muddadii kalfadhiga loogu talagalay aysan dhamaanin xarunta golaha baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle ay ku sugan tahay kusimaha gudoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle. arintaas uu gudoomiyaha sameeyay waa sharci darro waa wax ku cusub shuruucda ay ku dhaqmaan baarlamaanada adduunka. gudoomiye Cusmaan Barre wuxuu la yimid wax qaanuunka dawliga ah ka baxsan wuxuu si ula kac ah u jabiyay qodobka 37 ee dastuurka kumeel gaarka ah dowlad goboleedka Hirshabeelle faqradiisa labaad oo u qoran sidan golaha xeer dejinta waxa uu isugu yimaadaa kalfadhi caadi ah sanadkii 2 mar oo min 4 bilood ah. waxa kale uu jabiyay qodobka 66aad faqradiisa labaad ee dastuurka kumeel gaarka dowladda federaalka Soomaaliya oo dhigaya golaha shacabka ee federaaliga ahi waa inuu sanad kasta yeeshaa 2 kalfadhi oo caadi ah ugu yaraan midkiiba socdo 4 bilood. gudoomiyaha 2 bilood ka hor ayuu ka dhaqaajiyay kalfadhigii baarlamaanka oo furan hal fadhi oo kaliya uu ka qabsoomay iyadoo ay ka maqan yihiin xarunta baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle labadiisii ku xigeen Garowe iyo Muqdisho iyo Sacuudi Carabiya ayuu iska aaday. baarlamaankii wuxuu ka dhigtay tool oo markaas ku jugaysto kuna baatamo dowladda federaalka wuxuu kula heshiiyay haddii ay ka hor yimaadaan madaxda dowlad goboleedka Hirshabeelle ama ay diidaan amarada dowladda federaalka inuu kala shaqeynayo sidii uu xilka uga qaadi lahaa. gudoomiyaha waxa isaga darmay gudoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle caasimadda dowladda federaalka Soomaaliya ee Muqdisho iyo caasimadda dowlad goboleedka Hirshabeelle oo Jowhar ayaa isaga darmay. waxa isaga darmay gudoomiyaha baarlamaanka Hirshabeelle madaxtooyada Villa Soomaaliya iyo madaxtooyada dowlad goboleedka Hirshabeelle. waxa isaga darmay gudoomiyaha baarlamaanka inuu yahay gudoomiye baarlamaan dowlad goboleedka Hirshabeelle iyo inuu yahay gudoomiyaha baarlamaanka dowladda federaalka Soomaaliya. waxa isaga darmay gudoomiyaha baarlamaanka Hirshabeelle mudane Cusmaan Barre Maxamed inuu macallin dugsi quraan yahay oo kitaabtiisa markuu doono aftaxaya iyo inuu yahay gudoomiye baarlamaan maalin walba wuxuu u shaqo tagaa Villa Soomaaliya asagoo isku sawiraya madaxweyne Farmaajo si uu dhoolatus siyaasadeed iyo fariin cagajugleyn ah ugu diro madaxda dowlad goboleedka Hirshabeelle iyo xildhibaanada. wuxuu ilowsan yahay xilka loo dhiibay inuu caariye ku yahay oo uusan milkiyad u lahayn. wuxuu ilowsan yahay awoodiisa inay ku kooban tahay inuu shir gudoomiyo baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle iyo tirinta codadka oo kaliya. ugu dambeyntii waxaan u soo jeedinayaa xubnaha baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle inay dib u xusuustaan dhaartii ay mareen iyo mas'uuliyadda culus ee ay u dhaarteen danta gaarka ahna laga hormariyo danta guud. baarlamaanka haddii uu shaqadiisii gabo waxaa meesha ka baxaya ismaqalkii iyo kala dambeyntii ka dhaxeeyay shacabka ama bulshada iyo dowladda dhexdeeda. cid xukumi kartaa cid kale xukumaysa ama ka amar qaadanaysa lama arki doono. waxa burburaya dhammaan hay'adaha dowladda waxa laga amar qaatana ma aha qofka oo kaliya ee waa madax si sax ah sharciga ugu dhaqmaysa ayaa laga amar qaataa. haddaad wax ka bedeli weysaan xildhibaanaha haddaad tihiin dhaqanka ah inaad Jowhar ka yaacdaan waxaad dhiman doontaan geeridiina ka hor. wabillahi tawfiiq. wassalaamu calaykum waraxmatullaah.